أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. و لباتنكي بشي لبات سنتي لبات كون يا لباتن وأنا واحد سعاد واس محمد هاي كان وحن كسلام هيا لما سوماليد أوغادينيا يكوه ترتكميسي جمدو إثيوبيا سلامة إسلام كحقا كدب ما أنت أنا قدرين كيو وكدوين يحي dareemadii hore xiriirkii taxanaha ahaa ee aan u soo bandhigahayay ummadda Soomaalida ogaanaya gumaysiga ku hoos jirta ee aan la wadaagahayay dareenkayga isku jirta walxa fara badan ama talooyin ha ahaato ama xusi taariikh la xusahayo ama baraarujin inay fadhiga ka kacaan sida awgeed maanta waa maalinkii ay Soomaalida ogaadeenaya u aqoonsatay maalinkii xasuuqa ee gumaysiga madow xasuuqay maalinkaasna waxa weeye waa 22 Febraayo ama February ayaa loo aqoonsaday maalinkii xasuuqa ogaadeenaya sida awgeed waxaan rabaa inaan halkan ka soo gudbiyo waa maxay xasuuq yaa la xasuuqay yaa xasuuqay xasuuqa gumaysigu yuu isticmaalahayay iyo maxaa xal waxaan rabaa erayga xasuuq waxa weeyaan waa dhibaato si wadar ah oo aan la kala reebin saqiir hooyo uur leh aabba jaboobay hooyo jabowday culimo mutacallim saqiir kabiir xoolo dhul bee'adii ay lahaayeen aan haba yaraatee waxba looga hadhin ayaa waxaa la yidhahdaa xasuuq haddaan marka tusaale soo qaato xasuuqa gumaysiga madow ee Ethiopia uu xasuuqay shacabweynaha Soomaalida ogaadeenaya ee uu gumaysto xasuuqa marka kelmadda aan ku soo ururinayo marka ayaa waxay tahay bili aadanku laba shay ya jira oo bili aadanka ku dhaca labada shay waxay tahay midna waxa weeyaan waa dawo midna waa cudur marka waxaan dhihi karaa xasuuqan ku macnayn karaa waa cudur waa cudur saameeyay dhammaan shacabweynaha Soomaalida ogaadeenaya marka haddaan intaas kaga gudbo macnaha xasuuq haddaan in yar dib ugu noqdo marka oon fursad isa siiyo ayaa waxay tahay waa la kufsaday gabdhihii Soomaalida ogaadeenaya ninkii Soomaalida ogaadeenaya xoolihiisa dhaqanaya jeel jiraha ahaa ya dariiqyaha intii loo istaagay ayaa shafka xabad lagaga dhuftay isagoo xoolihiisii iyo arigiisii geeliisii aroorinayo waraabinayo waxaa la dilay oo si wadara loo dilay umulihii Soomaalida ogaadeenaya waxaa si wadara loo xasuuqay culimadii dhalinyaradii marka dareenkayga ayaa aad u kacsan sida awgeed
ma soo koobi karo macnaha xasuuq sidaa awgeed maanta oon anigu bisha 20 febraayo aan soo gudbinayo dareenkayga waxaan ka xumahay dhibaatooyinka xasuuqa ah ee gumaysigu u soo geystay eejadan uu ku hayo dabiciisu yahay marka intuu tirtiro uu dhulka ka qaato sidaa awgeed maalinkaa waxaa inaga xiga hadda 2 maalmood sidaa awgeed waxaa laga yaabaa maadaama ay ummadda Soomaalida ogaadeeyo aysan xor ahayn oo ay weli ku jirto gumaysiga madow ee Ethiopia oon aniga ka mid ahay oon weli gumaysi ku jiro ruux walba dareenku soo gudbinayo oo ah maalinka ay u aqoonsatay shacabweynaha Soomaalida ogaadeeyo gumaysi ku jirta 22 February ama Febraayo loo aqoonsan yahay maalinkii xasuuqa waxaa xusi doona dhacdooyinkii diiwaanka guud ee Soomaalida ogaadeeya iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya hay-adihii iska lahaa ayaa xusi doona masiibooyinka ku soo habsaday ee gumaysiga madow ku sameeyay sidaa awgeed anigu waxaa laga yaabaa marka ma aha munaasabad la xusahayo oo dhinaca wanaaga ama aha laakiin waa xusuus la dareensiinahayo kuwii ku dhintay ee la xasuuqay dadkay dhaleen ee koonkan ku nool macnaa kuwii la xasuuqay ee xabaal wadareedka lagu xasuuqay kuway dhaleen kuwa hadda curyaamiinta ee dhaawaca agoonta dhammaan shacabweynaha Soomaalida ogaadeeya ee gumaysiga ku jirta ayaa waxay tahay inay xusuustaan dhibaatooyinka gumaysiga ku sababtoo ah Soomaalida ogaadeeya weli mayna xoroobin xorriyad ku horayay ku jiraan sida awgeed waxaa laga yaabaa marka in qaybaha bulshada Soomaalida ogaadeeya ee koonkan ku nool ee masiibooyinka ka soo badbaaday ee hadhaaga ah ee ka soo hadhay dhibaatada waxaa laga yaabaa qaarkood inay xusaan maalinkii xuskaa loo aqoonsaday oo ah 22 Febraayo oo ah berri mooysaa dambe 2 casho ka harsantahay sababta maanta waa 20 Febraayo waxaa laga yaabaa qaarkood inay maalmo kadib xusaan waxaa laga yaabaa aniga oo kale oo u qaba hamuunyo hamuunyaan u qabaa macnihii inaan dareenkayga soo gudbiyo sida awgeed 2 casho ka hor baan ana dareenkayga soo gudbiyo marka Ilaahay baa eegaan ii waafajiyay waxaa la yaabaa marka inay qayb ka mid ah la waafajiyo isla maalinnimadii inay xusaan qayb ka midana markii la dhaafo qayb ka midana sideedoo kale inaan xuso 2 casho ka hor sida awgeed maanta waxaan dareensiinayaa marka shacabweynaha Soomaalida ogaanayay meel kasta ku nool yihiin maanta waa maalinkii loo aqoonsaday maalinkii xasuuqa shacabweynaha Soomaalida ogaaday gumaysiga madow ee Ethiopia u geystay sida awgeed xasuuq macnihiisu oo kooban waa sida yaa la xasuuqay marka cid la xasuuqay waayo waxaa la xasuuqay shacabweynaha Soomaalida ogaadeeya oo ay buucadday ku dhasheen ay lahaayeen dhulkooda oo leh khayraad fara badan leh wadiyaal leh khayraad shidaal leh xoolo nool oo nooc walba isugu jira ari lo geel dhulkaas oo leh cimilo aad u qiimo badan dadkaas oo la yiraahdo Soomaali loona aqoonsan yahay ogaadeeya gumaysiga madow ku jirta ayaa shacabkaas ayaa waxaa la xasuuqay ilmihii yaraabaa la xasuuqay waxaa la xasuuqay ilmihii dhexdhexaadka ahaabaa la xasuuqay waxaa la suuqay ninkii dhalinyarada ahaabaa la xasuuqay waxaa la xasuuqay waayeelkii baa la xasuuqay waxaa la xasuuqay hooyooyinkii baa la xasuuqay waxaa la xasuuqay umulihii baa la xasuuqay
waxaa loo diiday in la aaso ya gumaysigu sida fataatiirta uu shacdurayo uu shabaaxahay ya dadka uu leynahay ayaa arrimaha yaab kale baa waxay tahay intii la xasuuqaa weliba aaskoodii la diidanaa oo gumaysigu diidanaa in la aaso oo magaalooyinka la dhex wareejinahay sida awgeed shacabweynaha soomaalida ogaadeen yaa la xasuuqay oon loo kala reebin ya marka awee qaramada midoobay iskugu jira hay-adaha caalamiga sida Human Rights Watch, Amnesty International, ICRC iyo hay-adaha la midka adduunyada leh waxaan ka shaqeynaa as a humanitarian waxaan daryeelaa xuquuqda bini'aadanka kuwaasna waaba laga saarayba oo xilliga xasuuqyuhu gumaysigu EPRDF gumaysigu ugu dambeysay dictatorkii madaxa adkaa Meles Zenawi wuuba ka saarayba wadanka wuu ka saaray wadanka awee marka beeshii caalamkii joornaalada adduunka arrinta nooca soo tabin lahaa awada CNN awada Al Jazeera awada AFP ya Ethiopia dimuqraadi ba yaa ka jira leeyahay xasuuqaas marka masaasal marka waxa weey waxa la xasuuqay shacabweynaha Soomaalida ogaadiyay yaa xasuuqay marka waxa xasuuqay marka gumaysiga madow Ethiopia Africa wax gumaysta ya oo Africa laftigeeda wax gumaysta waa gumaysiga madow Ethiopia qaybsashadii Berlin oo adduunyada qaybsatay reer Yurub waxa qayb helay gumaysiga madow Ethiopia marka gumaysiga madow Ethiopia afartii regime ugu dambeysay regimkii Haile Selassie ya regimkii Mengistu Haile Mariam regimkii dictatorkii madaxa adkaa Meles Zenawi iyo Kaega oo damaciisu yahay macnaha siyaasadan cusub ee madamar iyo EPP oo ta ugu khatarsan sababtoo waxaan maqli jiray ma masbu ma abeesa ahayd markii ay ku qaniinayso way afuuftaa ama aan dhahno dab ya dhuxushiisi hoos ka nooshahay oo ilma yar oo saqiir ku istaago dhibaatada ku dhacay marka waxa way waa afuuf waxa yaab leh marka damaacigiisu waa kan systemkii Ethiopia EPRDF rajadii la lahaa nidaamkii federalismkii EPRDF ahaa qodobkii 39aad ee Eritrea ku xodowday sideedii u liqay ya maantana Soomaalidu ay qaarkood ku riyoonayaan in abi u Soomaali yahay oo leeyahay ariga Soomaalida ogaadeen inuu leeyahay ya marka gumaysigaas weeyaan gumaysiga gumaysta marka yaa gumaystadii la lahaa gumaysigu waa kaas oo xilligan xaadirka casriyeysan ya yuu isticmaalaa weeyaan marka xasuuqa yuu isticmaalaya weey gumaysiga madow Ethiopia wuxuu maskaxda ka fadhiistay wuxuu aqoon buuxa u leeyahay dabeecadaha Soomaalida ogaadeen xorriyadii koor bay ku jirtaa dhammaan baahida Soomaalida hogaamiyaashooda haddaan dhahno macni Soomaalida la qaybiyay haddana la sii qaybiyay Soomaali iyadoo shan u qaybsanayd ayaa haddana la sii qaybiyay sii qaybinta la sii qaybiyay dhammaantood waxay hoos tagaysaa nidaamka Ethiopia noocan casriga ugu dambeeyana si toos u cadaystayba ya sababta say u dhici kartaa ninka gumaysta marka waxaan xusuustaa aqoonyahan aad u qiimo badan xilli uu ka doodahayay oo aan ka dhageystay media sababtoo meediyahu waxay noqotay aalad aad u fudud aqoonyahankaasina waa nin fikir aaminsanaa Soomaali weyn iyo midnimadeeda aqoonyahankaas hadalkiisii baa waxaa ka mid ahaa Soomaali been bay ku kala tagtay ya macnaheedu been bay ku kala tagtay waxay isku iman doontaa run baa isku keeni doontaa
waxaan ka wadaa beentaa Soomaali kala jeynaysa yaana waxaan raacsanayaa waxa curiyay ee creative-ka ahaa ayaa gumaysiga madowga Itoobiya ya waxaana uu sii khatarsanba haddaan sharaxaad yar ka bixino nidaamkan hadda systemkan cusub EBB iyo madamarku damaacigiisu ya iyo policy-ga uu ku socdo waxay tahay hadda way bas shaba tahay Soomaalida ogaadeen waxaan u sheegayaa waliba gaar ahaan waxaan u sheegayaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen sabab loogu hambaliyay ya abaalmarinta caalamiga ee la siiyay ya oo maantana ku riyoonayo ya in Soomaali iyadoo heshiin weyda wada hadli weyday in intuu isagu wada hadal siiyo Soomaali laga soo qaado waxaan macna lahayn sideebay marka nin axmaara nin Etoobiyana maaragta aragtidiisu sidaa tahay ya oo aniga Soomaali ah iyo wada hadal siin jira ya marka waxa weey geeridu markuu qofku caadi u dhinto ee uu xariga ee biheen haysto qofkaas geeri taam u dhintay laakiin qofku ya shakhsiga bil aadankihi waxa la dhihi karaa laba geeriyood weeyaan muxuu laba geeriyood u yahay markii uusan marinkiisa haysanin marka Soomaali ya Soomaali ya ayuu awal ku isticmaalay xasuuqa loo jeestay Soomaalida ogaadeen ya waxa mindi daabkeed ahaa Soomaalida laftigeeda sida awgeed gumaysigu aqoon buuxdo u leeyahay ya sida awgeed waxaan ugu gudbeynaa marka qodobka haddaan ku xusnay waxa la yiraahdo xasuuq ayuu isticmaalay Soomaalidu isticmaalay way ya sida awgeed awee marka beeshii caalamka awee maxkamadihii caalamiga awee hay'adihii samafalka ee caalamiga awee United Nationski ya awee humanitarian ban eegaynaa la lahaa awee beeshii caalamka marka beeshii caalamki dhibaatooyinkaas xasuuqa ay Soomaalida ogaadeen loo jeestay ayay abaalmarin siinayaan sida halka waxa idin ka cad marka inaan wax la yiraahdo beel caalam oo si xaq ah u socota inayna jirin sida awgeed kiiska Soomaalida ogaadeen ku dhacday waa kiis caalami ah sida awgeed oo ma laha xaq abaalmarinta cidda maanta xaq u lahayd waxay tahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen oo ka dhiidhiday iyada xaq u lahayd maanta inay peace prize ka la siiyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen xaq u lahayd ya waa makhraati ma doonta inay iyadu ay iska lahayd baladaas ya sida awgeed maxaa xala marka xalku iska cad yahay marka xalku wuxuu u cad yahay waxa laga maarmaana in la istaago ya in ya la yimaado ya hoggaan aragti dheer leh ya oo haya ajandayaal cadcad oo xalka lagaga baxayo ya in la sameeyo hogaamiye dhaqameedyo tayo sare leh ya oo ummadda danaynaya labadaas ajande oo la mideeyo ya kadibna xilliga ogaadeen ama Soomaalida ogaadeen xoroobayso ma ayna meel ku dhiganin iyadu ee biheen weynaan jaranaya xilliga xorriyadii ka hor in la galo hal jeer adag sababtoo xilligan xaadirka Soomaalida ogaadeen nasiib bay leedahay sababtoo waxay leedahay jabhad wadaniga xoreynta ogaadeen sida awgeed ya waa in hogaaminta aragtida dheeri ay la yimaadaan ajandayaal cadcad oo gaarsiiya xorriyadda ya ta kale waa in barnaamijkeeda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen Soomaaliga ogaadeen ay noqotaa mid caalamiyeysan kana faa'iideysata kaydka jabhadda sida awgeed waa maxay kayd waa maxay caalamiyeyntu sida awgeed labadaas su'aalood ah kaydka ay waa maxay kayd waa maxay su'aasha caalamiga insha Allah waynu sharxi doonaa sida awgeed
waxaan aad uga xumahay maalinka loo aqoonsaday xasuuqii ku dhacay soomaalida ogaadeen ee u jeestay gumaysiga madowga Ethiopia eebeen weyn waxaan inooga baryaa inuu dhibaatooyinka dhamaatada ee inagu hayo baarlamaanka shayaadiilun insi iyo baarlamaanka shayaadiilun jinni ee gumaysigu ka mid yahay yaa eebeen inuu naga dulqaadaan ka baryaya amiin ogaadeen yaha xorowdo gumaysiguna ha jabo isu soo noqoda wanaagsan waa anigu axmed sucaad ugaas maxamed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu